halkan waa isgoyska ex control afgooye ee magaalada Muqdisho oo 28 bishan uu ka dhacay qaraxii ay ku baaba'een dad fara badan waxa waqtigan ka socda dibadbax saad u jeedaan dadkan waxa ay gubayaan taayiro dibadbax halkan ka socdo waxa dhigaya dadkii goobahoodii ganacsi ay ku burbureen qaraxii 28 bishan ka dhacay isgoyska ex control afgooye waxay qarxan kaga soo horjeedaan dawladda booliska ayay kaga soo horjeedaan oo ay sheegeen in ay ka burburiyeen goobahoodii ganacsi baxyaasha waxay ku qoolayaan dooni mayno saad u jeedaan waa dibadbaxyo rabshado wata dhagxaan ayay tuurayaan waxay raacdaysanayaan gaadiidka isku dayaya inuu halkan soo gudbo waxa u jeedaa waxay raacdaysanayaan gaadiidka iyo mootobajaadka doonaya inay halkan soo gudbaan gabi ahaan waxay xireen socodka gaadiidka iyo dadweynaha taayiradan aad u jeedeen waxaa gubay dadkan waxay ka caraysan yihiin ciidamada booliska oo ay sheegeen in ay burburiyeen goobahoodii ganacsi iyo guryahoodii oo ku yaalay afaafka hore isgoyska ex control afgooye gaar oo u jeedaa xabadaha ayaa halka dhacaysa ciidamada ammaanka halkan qof ayaa yaala oo ka mid ah dadkii dibadbaxay ملاي أي وضع مطلع وجد هذه البحاش الحليين قاركود وحي كعلنا عندك كله وحليين يلا تابن مطلع ما أقول إن جديد كإن تدوين ده جديد كني هل كان استعمالان ده كان دي البحية إن دي البحياش هذا الوحي سقوط جن إن قارك من عيد مدى وستقدر كمل الترجع ووجد ده وحليين أنا جا وحرب شاه ما ودنا وهك سعيد كجماعة كله تاجي يسوي جدا حق تربطي بدك تذبحي halkan waxa ka socda dibadbax dhigayaan dadka ganacsiga hay'adaha laamiga dadkii biyoodii oo burburiyeen 20 bisha ka dhacay halkan waa isgoyska ex control afgooye waxyaashu waxay gubayaan taayirka waxyaabo kale waxay gubayaanba la bareegay isgoyska dhan waxa ay diidayaan in gaadiidka ay isticmaalaan wadadan waxay ka dibadbaxayaan waxay tahay markii ciidamada ay sheegeen inay ka burburiyeen goobaha ganacsiga هذه موادنا تاسكي قدر
gordha waxaan isku day doonaa in aan wax ka weydiino qaar kamid ah dadka careysan ee dibadbaxan dhigaya waxa keenay ujeedka uu dibadbaxan u dhacayo si aan wax badan uga ogaano dibadbaxayaasha hadda waxa ay ku cararayaan mootooyinka halkaas baajiman si ay u kala furiyaan dhagaxaan ayay tuurayaan waa ujeeda dadka dibadbaxaya waxay ku tuurayaan gaadiidka dadweynaha oo halkan baakiman gaadiidka ayaa kala cararaya saad ujeedaan waqtigan halkan waa isgooska External Afgooye oo 28 bishan uu ka dhacay qaraxa dadkan waxay ka careysan yihiin waxayna sheegeen in goobahoodii ganacsiga guryahoodii ay dudumiyeen cagaf ay geliyeen laamaha amaanka gaar ahaan booliska sida ay sheegeen maamadan waxay ka mid tahay dadka halkan isugu soo baxay maama maxaa halkan ka socda maxaa la isugu soo baxay هدان بسماء هدان قصنا معنا قصنا بقبتيني وحنا لما يوم وحيga aan la soo baxay dugsiga kabacdi waxayna idheynay qustada bay qabteen waxay wax kale sama jiraan dibadbaxan ujeedkiisa muxuu yahay marka yaa laga soo horjeedaa ana baxan meeshii dhaantay nootiir inaga baabashan ko wax ka qayb basharay xadiis saxminimo yimideenay haday yimideen labiir bay ku wareegsadeen waxay noo qaybeen waxay ku wareegsadeen mooyaan ماريان تكون ركزت أفكار كشاك دك مذاك يمدين. ما كنا مشيتين. أنا بحكم اللي على وجهه. هذا يحكي الله يعني وحكي لنا شيء كذا. عبد الله حط عبر صاصع. هاي دوغدان كجاجني. دوغيو جاجي. كل فيديو انت كل فيديو dibadbaxayaasha ayaa ah kuwa malba meel u ordaya waxayna raacdeysanayaan meel walba uu gaari ay isticmaalaan dadweynaha ka soo galaya waxay diidayaan in wadadan ay isticmaalaan gaadiidka dadweynaha laakiin waxay ogol yihiin dadka caadiga ah iyo xayawaanada inay isticmaalaan sida dameeraha sida dhuxusha
هذا هوستج واحد كاس هو بالكاك